halka muuqaalka xiga wuxuu noqon doonaa basic needs oo qofka digital marketer-ka loogu baahan yahay. Waxaan saaxiibayaal waxaan rajaynayaa dhammaantiin inaad caafimaad qabtaan. Waxaan rabaa saaxiibayaal casharkeena koowaad oo ahaa waa maxay digital marketing-ka aan soo sheegnay inaan casharkeen labaad oo noqon doono waxyaabaha qofka digital marketer-ka loogu baahan yahay inaan ku qaada dhigno. Muuqaalkan aad baan rabaa inaan usoo koobo waxyaabaha loogu baahan yahay qofka digital marketing-ka ayaan rabaa inaan aad iyo aad ugu sharxo. waliba qofka skills-kan hadii uu barto qof digital marketer buuxo uu noqon karo suuqyada caalamiga ah ee online-kana ka shaqeysan karo offline ahaana u shaqeyn kara. waxyaabaha ugu horeeya oo qofka digital marketer-ka loogu baahan yahay waxa kamid ah 5 qodob oo kaliya. waxyaabaha ugu horeeya qofka digital marketer-ka loogu baahan yahay waxa kamid ah in basic education-ka uu ka dhisan yahay sida luqadda Ingiriiska ama wax ka fahamsan yahay. qofkaas wuxuu noqon karaa digital marketer. qofka luqadda Ingiriiska waxay ku kaabaysaa inuu content qurux badan qoro meelaha qaar uu wax ka akhristo ay uu dadka qaar la xiriiri karo la sheekeysan kara ayay ku kaabaysaa luqadda Ingiriiska. marka haduu wax yar ka fahamsan yahay qori karo akhri karo xitaa waa iska caadi. qofka haduu qof smart ah wax fahmi karo Google Translate adeegsan kara. marka qofka waa inuu basic education ahaan u dhisan yahay. marka aan leeyahay waxaan ka wadaa qofka inuu wax fahmi karo degdeg wax ku fahmi kara dadku bulshada wax la qaybsan kara education-kiisa caadiga uu hagaagsan yahay. qodobka labaad hadaan u gudubno data analytics waa inuu yaqaan. data analytics waxa loo yaqaan in xogaha xog aruurin sameyn karo. waxa data analytics waxaan ka soo sameyn doonaa insha Allah muuqaal ka soo sameyn doonaa. qodobada hadda aan sheegayo dhammaan muuqaal ka soo sameyn doonaa insha Allah. data analytics inuu xog aruurin sameyn karo oo in ganacsiga markaas uu xayeysiinayo meelaha ugu fiican lagu xayeysiin karo iyo si inuu data analytics kulli muuqaal qurux badan ka soo sameyn doonaa insha Allah. data analytics oo muuqaaladan xigu noqon doona insha Allah. qodobka saddexaad hadaan u gudubno qofka inuu yaqaano wax loo yaqaano content creator inuu yahay qofka wax qori karo postiyaal qori kara muuqaalo sameyn kara postiyaal qori karo website wax ku soo qori kara hal abuur yahay inuu hal abuurnimo sameyn kara oo qofku wax soo qori kara wax dadku soo jeedan karo wax dadka ay soo jeedan kara muuqaalaha ahaadaan qoraalaha ahaadaan inuu sameyn kara. waa qodobka saddexaad oo ahna qodobka ugu muhiimsan hadii muuqaalka aad soo duubto ama qoraalka aad soo qorto uu yahay qoraal soo jiidasho leh dadku aad ku soo jeedin karto runtii waxaad noqon kartaa qof weyn oo digital marketing-ka aad iyo aad ugu fiican aad noqon kartaa. qodobka afraad waa inaad taqaano social media aad u fahamsan tahay Facebook haday tahay iyo Instagram Telegram kalaftarkiisa WhatsApp-ka adiga social media platforms badan inaad lahaato oo aad badeecada aad tahay markaas xayeysiinaysa aad meelahaas ku soo bandhigi kartid. kan waxa isla xiriiro qodobka aan soo sheegnay content creator. marka content creator hada tahay oo qof hal abuurkiisa aad iyo aad u fiican yahay aad tahay oo muuqaal qurux badan iyo fiidiyo qurux badan soo hagaajin kartid fiidiyadaas dhaxdooda aad badeecooyinka ku dhaxaysiin kartaa dadkaas aad soo jeedatay oo adiga kugu soo xirmay social media platform-ka ku soo xirmay ayaad runtii badeecada ku dhaxaysiin kartaa. marka waxay ka caawinaysaa inaad qof content creator fiican aad noqoto. waxay ka caawinaysaa inaad qof perfect marketer digital marketer aad noqoto. qodobka xiga hadii aan ugu sii gudubno inaad graphic design-ka aad wax ka fahamsan tahay. graphic designer aad u fududahay runtii hadda dunidu way horumartay. runtii muuqaal ka soo sameyn doona Canva hadda taqaano runtii Canva muuqaal ka soo sameyn doona sida Canva
waxa loogu maaragtay graphic design ka loogu sameysto logooyinka ku dhex sameyn kartaa waxa ku dhex sameyn kartaa yacni maaragtay posters ka ku dhex sameyn kartaa Black Fridays ka ku dhex sameyn kartaa Canva-haas runtii ayaad adeegsanaysaa adoo graphic designer buuxaad noqonaysaa sidoo kale waxaa jiro qodob loo yaqaano inaad website maaragtay ama SEO ama SEO aad u fahamsan tahay iyo waxa loo yaqaano SEO iyo SEM SEO waxa loo yaqaano search engine optimization SME waxa loo yaqaano search engine marketing marka yacni inaad website leedahay oo aad yacni badeecadaada website-kaas maaragtay inaad content ku soo qorto ama post ku soo qorto aad soo dhigi karto marka badeecadaada yacni content SEO haddaad wax badan ka fahamsan tahay waa runtii waa meesha aad loogu tartamo waa SEO-ga iyo SME-ga runtii marka Google-ka qofku wax ku soo raadiyo si ay badeecadaada maaragtay rankiga ugu sareeyo ay u noqoto marka shirta amal adiga shaati xayeysiinaysa qof shaati markuu maaragtay Google ku soo qoro badeecadaada tan koowaad tan labaad ama tan saddexaad si loogu soo dhigo maaragtay yani SEM-ka ama SEO ay ka caawinaysaa ayadana muuqaal ayaan ka soo sameyn doonaa anigoo faahfaahinaya saaxiibayaal qodobadaas ay ahaayeen qodobada ugu muhiimsan qofka digital marketer-ka loogu baahan yahay marka waxaan rajaynayaa inaad maaragtay dhammaantiin caafimaad qabtaan muuqaalkan naga qurxiya dhanka iyo comments-ka iyo waxyaabaha comments-ka naga soo weydiiyo waxyaabaha aad markaas muhiim u tihiin sidoo kale waxaad maaragtay yani like-ta iyo subscribe-ta runtii dhiirigelinayno tahay dadka walaalaha kalena u sii share garay saaxiibadada kale muuqaalka u sii share garay Telegram-ka linkiga hoos yaalana ku soo bir waxaad maaragtay yani chance u yeelan kartaa inaad maaragtay teamkeena dalab group aad ka mid noqoto haddii yani fursadooyin aan soo bandhigno sidoo kale muuqaalada ugu horeeya ayaa ku soo gaari doona insha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin